adeegani wuxuu ka mid yahay adeegyadii hore ay shirkadu bixin jirtay qaabka uu security-giisu ku salaysan yahayna waa qaabkii loogu talagalay in ay ku noqdaan secure maaragtay kaadharka ama loo isticmaalo ama ha noqoto sidii traditionalka ahayd ee pin numberka la isticmaalayay ama ha la isticmaalo wixii la odhan jiray double factor authentication iyo tokenka marka security ahaan intaasaa oo kala duwan ayaa la isticmaalayaa kolley waa adeeg caalami oo si standardna ku salaysan qolada mastercardna ay leedahay restrict maaragtay security maaragtay procedures oo lala raacayo adeega markaad bixinayso marka xag security ahaan waa laakiin maxaa adeegan maanta aynu keennay halkan bulshadeena kaadhar hore way jireen maxaa differentiate garaynaya maxaa ka duwan oo u dhaxeeya oo kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay adeegan sida halkan laga wada dhawaajiyay waxaad u isticmaali karaysaa isagoo kaadhana waad isticmaali karaysaa isagoo virtual ah oo mobile-kaaga aad ku dhex samaysatana waad ku isticmaalaysaa taasoo kuu sahlaysa in aanad marnaba iloobin imika caawa halkan dhowr goor baa lagu celcelinayay taleefankaaga inaad ka tagto ma dhici karayso qofku taleefankaaga waad u noqonaysaa haddii uu taleefanka guriga kaga timaado kaadhka laakiin waad ilaabi kartaa laysankayga maalin walba waa iloobaa waa la joojiyaa dee waa kaxeeyaa marka surwaal bedeshaba waxaa yimaada inaad kaga tagto surwaalkii horead xidhnay laakiin kan waa mobilekaagii waa kad mar walba eegaysay waana ka kuu fudaydinaya inaad adeeggii maaliyadeed ee kaadhkana ku isticmaali karto si sahlan